soo dhawaada asxaabta sharafta leh ee maanta waxaan isla eegaynaa ama falqeynaynaa sida hablaha reer Burco gacanta loogu dhigi karo. Horta mawduucyo hore aynu ka soo hadalnay laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa si aad mid aad jeceshahay iyo mid aan ku jeclaynba maxaan kaga jeedaa mid aad jeceshiin iyo mid aan ku jeclaynba si hablaha reer Burco gacanta ugu dhigi karto. Waana waxyaabo xaqaa tijaabooyin anigu aan sameeyay asxaabta aan sameeyay waxyaabo badan aan kala shirkaday waxyaabaha aan soo bandhigay waxaan u sameeyay waxa asxaabta iyo waxyaabo dhacday oo dad waxyaabahan arrimahan wadno khibrad u leh ay sameeyeen markaan ama la kaashanay haddii aad Burco ku nooshahay ama aad Burco banaankeeda joogto hal hab ayaad isticmaali kartaa markaad Burco joogto oo aad gacanta ugu dhigi karto tii quruxda badnayd iyo tii aan quruxda badnayd ee degdegida ahayd tusaale ahaan waxaa habla reer Burco jecel yihiin oo kale aynu ka hadlaynaa waxyaabaha ay jecel yihiin ama haddii aad samayso 100% ay ku kalsoonaanayaan hablaha reer Burco xawayaan horta barigii hore ragga nidaamka xasaawo ama wax ku heli jireen saddex bay ahayd qurux af Soomaali iyo lacag imika wax isku soo shubatay hababkii wax lagu heli jiray ama talaabooyinka wax lagu heli jiray laba isku soo shubatay waa lacag iyo af Soomaali ama si kale inaad labada wada socda haddii macnaha qaar aad samayso aad ay matasho inaad ku helayso af Soomaali isaga laftiisa waad ku helaysaa laakiin dadka Burco jooga imika 10% af Soomaaliga ku hel Burcadii hore marka soo marto Burcadii hore ma joogtaan wax dhintay iyo wax caalamka iska diibay mid badan ka Burcadii hore waxa kale oo soo galay meelan oo tuulooyinka iyo miyiga meelaha kale ka yimid raga xasaawaha af Soomaaliga ku helaa waa 10% oo ma badna 9% waa nin lacag haysta ama nin matala tusaalahan anigoo sharba waxaan doonayaa inaan gabadh gacanta ku dhigo lacagna ma haysto af Soomaali lama aqaan laakiin si hal wado ayaan isticmaali karaa waxa weeyaan horta shil alaale shiliga soo gala ama xamaasho ama cid ku tirsanaadey waxa ay soo galaan dhar labis baa ku iibsanaya mar walba tacliin wax ka shaqeyn maayo labiskayga xaragadayda ka shaqeynaya labo wata anaydo meel ku soo gacan galayso xaragadayda ta kale waxay tahay matalada ka hadlaynaa waa ka soo hadalnaa xagga labiska talabaad waxa weeye wixii soo gala waa inaad baawur ku kareysataa ilaahumaa qadada bahaynaba waa inaad dhowr liters ka beegta fitisaato mid barooyo quufaato mid kala haato haddaa soo kaxaysato oo gabadha ay kugu aragtay barnaamij xafidada ku wareegtay ama aad ku qaado way ku cabaysaa xaqiiqo way taas tigla haddaa tayna way fiican tahay way duba ka qaar baa aaminsan ninka tigta haysta inuu briskeeda mar saari karo waad ku ximin kartaa dad haddiise aad wantan soo kaxaysato tahawshu waa dhatayba waad ku hor qabanaysaa ku sii qaado raacaysa maalmaha kadib aan ku sii qaado soo wacaysa waad raacaysa watanka waxa hanka aan kaftan maanta waa waxyaabo tijaabo cid ka xanaaqsada ka xanaaqeenba hadhow marka gaari ku qaad AC-ga u shid bas intaas ku qanacsaa AC-ga hadda u shido intaas ku qanacsaa sheekadu waa dhat habis hawl haddii aad qurux lahayn af Soomaali ku jiray ummadaad ka nooshahay ka dhalatay shaxaada dad weydo meelaha xaada dadato wantanka saaxiibka ama qof ku dhiibay shidaal soo shubo fitis ama garanday waxyaaba aynkaas shidaal ku shubo ku aad mar abi si qaad khalaas inta wadate intaas baabla yaro intaas AC-ga ma shidaysa bas hotel iyo waxan Burco ka joogto waa soo mashquuleen lacagna ku bixinba intaas weeyaan tijaabada aynu sameynay maanta intaas aynu gula wadaagnaa wixii dambe haddii aad YouTube-keena ku cusub tahay fadlan subscribe saar siina share kale sidoo kalena Facebook page-keena like saar mahadsanid halkaan kala socono